saacado kooban ayaa ka harsan in koobka adduunka maanta waxada lagu daafuro wadanka Qatar oo ah wadan Islaam ah isla markaana ah wadankii ugu horeeyay Islaam oo ku guuleystay inuu martigeliyo koobka adduunka. Wadamada reer galbeedka ayaa bilihii ugu dambeeyay isbuucyadii ugu dambeeyay iyo wadartood saacadihii ugu dambeeyay eedeen kulul u jeedinay wadanka Qatar waxaa lagu eedeynayaa in wadankeeda ay u diiday kooxaha loo yaqaan LGBT-ga isla markaana ay ka mamnuucday in wadanka Qatar si guud ahaan qamrada loogu cabo ama ay xadiday goobaha qamrada lagu cabayo inta koobka adduunka uu socdo. warbaahinta reer galbeedka oo dhan ayaa waxay weerar xoogan ku hayaan wadanka Qatar. Gianni Infantino madaxa FIFA ayaa maalintii shalay ahayd 57 daqiiqo hadlayay wuxuuna weerar culus uu ku qaaday wadamada reer galbeedka ee warbaahintooda isagoo markaasi ku tilmaamay inay yihiin munaafiqiin dunida oo dhan u kala munaafiqeeyay. Gianni Infantino hadalkiisa aad ay u dhibsadeen wadamada reer galbeedka oo dhan oo warbaahinta reer galbeedka iyo Mareykanka waxa ay weerar toos ay ku qaadeen Gianni Infantino isla markaana ay ku tilmaameen in Qatar uu ku soo dhisayo iyaga. Gianni Infantino wuxuu soo hadal qaaday oo yiri wadamada reer Yurub waxay 3,000 oo sano ay ka hor ay dhibaato ka geysteen dunida waxayna waajib nagu ah ayuu leeyahay 3,000 oo sano ee soo socota inaan raali gelin ka bixino 3,000 ee sano ee soo dhaaftay dhibaatada ayna dunida ka geysanay inta aanan bixin ayuu leeyahay casharada aan doonayno inaan dunida siino casharadaas oo ku saabsan waa sida iyaga ay aaminsan yihiin laakiin hadalkiisu uu ku duraya iyaga wuxuu leeyahay casharadaas oo ku saabsan anshaxa iyo akhlaaqda ee ku saabsan inaan doonayno inaan siino wadamada Islaamka isagoo markaas hadalkiisa uu ku duray oo tahay in dhaqan xumada aan doonayno inaan dunida aynu barno waa inaan horta marka koowaad raali gelin ka bixino wixii aan fool xumo ah dunida aan ka geysanay. Gianni Infantino waxyaabaha reer galbeedku ugu careysiyay waxa kamid ahaa reer galbeedka ayaa isbuuciyadii ina soo dhaafay waxay warbaahintooda ay tabinayeen in Qatar ay wadanka Pakistan ay ka soo kireysatay taageerayaal oo markaas ay siin doonto 3 waqti casho iyo maalintii ay siin doonto $10. Gianni Infantino ayaa hadalkaasi soo hadal qaaday wuxuu yiri maxaa ku jaban hadii wadamada reer Yurub ay iyaga laf ahaantooda ay ogol yihiin dad aan iyaga asal ahaan u dhalan ama aan ka soo jeedin wadankooda inay taageeraan way ku faraxsanayeen oo leeyahay tusaale anigu hadda Soomaaliya ka imid inaan taageero Ingiriiska aad ay ugu faraxsan yihiin laakiin maxaa ku jaban Qatar inay taasi oo kale ay samayso oo dad yaani ajaanib oo Hindi ama muuqaalkooda Asian ah inay idin taageeraan taasina waxay la mid tahay ayuu leeyahay in cunsuriyiin xun aad tihiin ama cunsuriyinnimadiina aadan qarin oo aad diidan tihiin dad ka soo jeeda Aasiya inay idin taageeraan idinkoo cadaan ah ama idinkoo western ah waa sida hadalkiisa uu yiri iyagana aad ay hadalkaasi u dhibsadeen waxayna la yaabay yihiin Gianni Infantino ah qof yaani qaaradda Yurub ka soo jeeda in uu la soo safto waa sida iyaga ay u arkayaan xitaa wargeysadooda ku soo baxayaan ay u arkaan inuu la saftay wadan Islaam ah hadalkana waxa muudaa in Qatar uu aad iyo aad ay ugu sii adkeysanayso habdhaqankeedii islaamnimada ahaa oo ay u diidan tahay wadankeeda inaan loo ogolaan qolooyinka loo yaqaan LGBT-ga ama inay xadiday goobaha qamrada lagu cabo ama waqti qamrada la cabo oo kaliya ay samaysay taasna waxay aad u sii caragelinaysaa dhammaan wadamada reer galbeedka. maqaayadaha ama meelaha goobaha qamrada lagu cabo ee baabka loo yaqaan Ingiriiska waxay mamnuuceen in koobka adduunka laga fiirsado goobahooda lagu caweeyo ee qamrada lagu cabo iyagoo markaasi yaani sheegaya inay ku banaan baxayaan wadanka Qatar oo ay diiday in wadankeeda ay tagaan ama calaamada LGBT-ga si xuraam wadankaasi loogu dhaxluxo waxay sidaasi oo kale ay sheegeen inay Qatar ay diiday in qamrada lagu cabo wadankeeda taasna waxay leeyihiin ma ahan wax yaani fiican oo xuquuqul insaanka ama bini'aadanimada u fiican.